runtii hadee anigu nin soo shaqayn jiray baan ahayo kolleyba wuxuu tilmaamihii shaqadayda iyo CV-gayga iyo intii taqaanay waan isleeyahay waxbay ka saameysay in madaxweynuhu garto in aan ra'iisul wasaare noqdo marka wixii anagu aan qaban karayna waa qabanay runtii wax badan baan qabanay wax walba lama qaban wixii aan rabnay ma aanan qaban duruufaha dhaqaale ama siyaasadeed ama amni oo jira awgeed laakiin runtii wax badan baa la qabtay gobollo badan baa xoroobay amniga xamar wax badan baa iska bedelay waad arkaysaa waa muuqataa anigu markaan imaanayay oo aan ra'iisul wasaaraha noqonayay dhacdooyinka iyo shilalka amni oo dhaca waxa ku dhawaayeen maalin walba runtii ama wax la dilo ama qarax dhaca baqdintuna intaan waa ka badnayd hadee waad garanaysaa dhul badan baa la xoreeyay oo gobolada dhexe gobolada koonfureed goboladan shabeellooyinka dhul badan baa la xoreeyay weli dhul badan baa u baahan in la xoreeyo waxa kale oo runtii isbedel ka dhacay maamulada gobolada oo aad moodo in talaabo fiican laga qaaday xaggii dhismaha maamulada dadka ismaatankiisa iyo inay fahmaan baraka waxaan iraahdaa aqoonta siyaasadda dalkeena ka maqan dadku waa inay fahmaan danta qaranka marka la helo danta shakhsiga la helayo marka dadka Soomaaliya bariyahan waxay hormarinayeen danta shakhsiga laakiin danta shakhsiga ma dalan karto beera kama samaysan kartid shabeellada hoose haddaadan nabadgelyadii iyo jidadkii iyo daryeelkii dadka iyo haddaan jirin marka waa in la abuuro environment kaasuna wuxuu ku abuurmayaa marka danta guud laga shaqeeyo marka waxaad moodaa fahamkaasuna inuu soo badanayay oo runtii midda ugu muhiimsan laana dalkeenu iskhilaaf iyo dana shakhsi ayuu u burburay marka ilaa la ogaado dadku uu ogaado danaha guud in ay ka horeysiyaan kuwa gaarka waxna soconaayaan marka horumar fiican baa la gaaray rajaynayaa inuu sii socdo horumarka watahay dadka Soomaaliyeed waxay aad wax badan ay ka yiraahdaan ay hadalhayn badan ku noqotay arinta ku saabsan isqabsi madaxweyne iyo isqabsi ra'iisul wasaare iyagoo wada shaqeynaya haddana taasoo ay jirto waxaa jira in cidda ra'iisul wasaaraha loo dooranayo iyadoo og in ra'iisul wasaare ka horeeyay uu ku baxay waxa uu ku tagayna aanu ahayn macna saa u weyn ayuu haddana ra'iisul wasaare noqonayo isagina uu ku sii daba joogo taa maxaa sabab u ah kulleyba waa dadka shakhsiyaadku waa kala duwan yihiin oo anigu runtii way la ahayd in Soomaalidu waqti badan ay geliso in laga fakaro maxay u soo noqonayaan arrimahan waxaan ognahay 10 sano la soo dhaafay ilaa 10 ra'iisul wasaare ayaa isbedeshay kharash aad fara badan bay dalka ugu fadhidaa waa marka koobaad in ra'iisul wasaare la bedelo ra'iisul wasaare kaliya la bedeli maayo xukuumadda dhan baa isbedelaysa xukuumadda dhan ayaa isbedelaysa inta xukuumaddaas la dhisayo inta la isku soo dubaridayo inta sal u fariisanayso inta shaqada ka fahmayso uu yaraan sanad barkii bay noqonaysaa hadda waxaan u malaynayaa 3 bilood ku dhawaad way inta ilaa 5 bilood bay ku dhawdahay inta hadda xukuumadda ay maqan tahay dhowr bilood oo kalena waa dhici kartaa inay qaadato intay sal u fariisanayaan fahmayaan shaqada oo isku daba dhacaysa shaqada marka kharash aad u fara badan ayay ku fadhidaa intaas waxaa baaqanaya kalsoonidii xukuumaddu way heli lahayd oo adduunka ay ka heli lahayd ilaa mar walba haddii loo arkayo inay wax sabaynayaan dadku ku soo dhiiranayaan rajadii dadka hoos u dhacaysa fahamkii dawladnimada oo dhan waxa loo fahmaya wax in la isku eriyoodo oo qolaba mar la eriyoodo ayaa loo fahmay runtii marka waa nasiib daro waxaan rajaynayaa in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee bilowday xukuumaddan markii mooshinka laga keenay oo ogtahay in xildhibaano badan iyo siyaasiyiin badan ay u istaageen oo yiraahdeen maya markaan xukuumad lama ridayo uma baahnin xukuumad la rido way dhacday waa la riday laakiin taas inay sii socoto oo laga baaqsado xukuumadda dambe oo si fudud loo rido
marka waa inaynu cashar ka baranaa 10 xukuumadood oo 10 sanadood isbedeshay iyo khasaaraha ay noo yeelatay iyo sida ay niyadda adduunka wax nala raba iyo niyadda ummadeena ay u dishay waa inaan wax ka baranaa dib u dhaca nagu dhacay waa inaan wax ka baranaa marka waa inaysan dib dambe u dhicin arrinta isla arrimahaas aad ka dhawaajisay Ra'iisul Wasaare Soomaalidu waxa kale oo ay hadal haysaa labada xafiis ee dalka oo aan ognahay in dib u dhacyo badan ay ku keenayso isqabsigooda howlihii shacabka la doonayay in dawladda ay u qabato si hoose marka u hadalno waxa jira gacan saddexaad oo labadooda ka madax banaan oo arrintan أنا هذا قدام قارها فرت كفيقة ما جرته ودتون كواس كبلين هايو سمعت واحد يسكتوا أنت دون كولان واحد يسكتوا لكن واحد لا تحي إن يجريان مرول با ضد أضحية وربط قسكة وحكوضة يضد بدن وضع لغيا وأحكي إني دنكوه ليان isbedel ka xukuumadaha isbedelayaan oo qaar badan ay leeyihiin wasiir baa tiri doontaan oo qaar badan ay leeyihiin xogaal kale ayaa tiri doontaan marka kama gacmo kale kama xafiisyada kaliya ee dalama saari karo laakiin de xafiisyada ayaa hawsha leh iyaga la rabaa runtii inay ka madax banaanadaan arrintaas oo ay hawshooda ay daacad u noqdaan oo ay dalka ka nabadgeliyaan jahawareer iyo deganaansho la'aan siyaasadeed inaan soo noqon watahay waxa kale oo aan doonayaa bal inaan ku weydiiyo waxaad aad uga duwaneyd hanaankii ay ku tageen Ra'iisul Wasaarayaasha adiga ka horeeyo oo waxa la dareemayay in adkaysi badan aad muujinaysay xilliga arrintaas ay taagneed qodobada qaarna aad cuskaraysay waxa jiray isku halayn dambo adiga aad dhanka siyaasadda ka qabtay maxay ahayd kalsoonida aad qabtay adkaysigeedu wuxuu ku saabsanaa waxaan aaminsanaa inaysan daw ahayn inaysan wanaagsanayn dalka inaysan wanaagsanayn mooshinadaas iyo deganaansho la'aantaas siyaasadeed marka runtii inaan ku adkaysto aniga iyo saaxiibo badan oo runtii xildhibaano iyo wasiirro iyo dad badan oo siyaasiyiin ah waxay la xiriirtay aragtida aan qabno oo ah inaanay waxaaso dan u ahayn dalka iyo ummadda aysan u ahayn waana dhici kartaa dad badan oo markii naga fikrad duwanaa markii dambe inay garaysteen oo arrintaas xaqiiqsadeen oo ay noo garaabeen oo yiraahdeen wallahi waa naga qumadeedeen marka midaas ay ku saabsanayd horta adkaysigii aan adkaysanaynay ilaahay haddana waa qabnaa oo waa qabaa anigu in sidii fiicnayd aan yeelay sidii ay ku dhamaatayna markii dambe aynu aqbalay gariga gardarraba baarlamaanka Soomaaliya waxay tiraahdaa madaxda meel ka sareeya oo la salaaxo ma jirto baarlamaanka aanu dhisanay waxa uu go'aansado waa in loo hoggaansamaa waa in la raacaa mid ku taag yani arrintu ku wanaagsanaan mayso joogitaanka aan hadda joogo dalka waa joogaya dalku waa dalkayga weeyaan dibadda kama imaan meel kale uma dhalan Soomaali baan ahay xamar waa magaalo madaxeedii dadka degan waa dadkaygii anigu ayagaan ka mid ahay marka Ra'iisul Wasaarenimo kaliya kulama joogayo waxaan ku joogayaa anigoo shacab ah waxaan ku joogayaa anigoo ayaga ka mid ah hawshuna maalin walba waa taaganta hadda dhinac baad ka qabanaysaa mar adigoo Ra'iisul Wasaare aad qabanaysaa mar adigoo siyaasi aad qabanaysaa mar adigoo shacab aad qabanaysaa mar adigoo ganacsato aad qabanaysaa hawsha kuma filla Soomaaliya in wax laga qabto dhibka yaala kuma filla inta yare xukuumadda ah madaxweynaha iyo prime minister iyo xukuumadda iyo xataa baarlamaanka kaliya kuma filla dadkoo dhan baa la rabaa inay howlgalaan gaar ahaan dadka waaye aragga ah dadka xilalka qabtay marka xilka ay ka tagaan waa inaysan dalkooda dhabarka u sii jeedin waa inay dadkooda kusoo dhex noqdaan wixii halaabay in la soxo waa inay ka qayb galaan wixii hagaagsan in la sii riixo waa inay ka sii qayb galaan waa inay kalsooni abuuraan in dalka dalkooda uu yahay oo ay joogayaan marka midaas weeye anigu midaan aaminsanahay midaas aan ku joogi doonaa haddii alla idmo